kooxda Paris Saint-Germain oo si rasmi ah soo xaadirisay wareegga xigo tartanka oo ku socday xirada dhagaxley gaar ahaan garoonka ee Boys ayaa Paris Saint-Germain iska xaadiris waana waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee tartanka geemkooda labaad iska xaadiriyeen wareegga xiga hambalyo kooxda sagaar ay hogaaminayo shalayna waxay ku fureen guul ka soo loobay ku xaqeen kooxda Al-Hayat uu hogaaminayay Liibaan ayaa laba eber ku duwatay labada gool waxa uu dhaliyay Nuuro Mounty oo madaxa u dhaliyay iyo qalad uu galay goolkiibaha oo Saha u abaalmariyay oo gool ugu bedelay Saha oo 600 oo gool shalay ciyaaryahanka Saha oo shalay dhaliyay goolkiisa 600aad tartamada oo idil ayaa shalay goolkiisa buug iyo taariikhda la galay hambalyo Saha weeriyaan